الرحمن الرحيم مدحوينا حسن الشيخ محمود يا حلقة كقاتلية إذا كحوك دلك جنرال أودوان محاصل لغو ماغي يالا مقعابي نين عبسي آدو طابران ودقاليهان أو فايترة oo ka soo jeeda degmada raagaceele oo aanin maxamed muuse oo galmaaxa oo liyaajala ibraahim ayaa lagu bedelay nin ciyaalka xaafadda oo galaangalkiisu xoogan yahay ayaa lagu bedelay waxyaabo badan baa la isku qabtaa leeyahay hase yeeshee beesha mursada ayaa maanta iska horjibiyey oo degdeg badniya war fudud badniya war hambalyo taliyaha cusub abtigay nin maxamed muuse way abtigay جلال إبراهيم همبليو كسو دهو صاحلا اول برقة واويني مشيك واحدة قاتشنا يا هايت حضنا سو دهو باشا مرسلة ايا وحي يسميين باشا مرسلة ايا وحي يسميين يران كوبادة عكت من الشيبي اي حرية لكويلي او نرقا نحستا هرلوسي او دادك اللي قبركي او اي رق دير كوبا حسين هي عقف قاتل عقف لان نمك ولا نمك عقف بي قاتل رق واجيبيين دولكay dhigeen waa farin cad oo muujinaysa ganacsiga lacagta Ingiriiska dhulka dawladda in laga yaabo inay dib wixii dad laga xoogay in dib dabaqeena dheer la jibina la arki doono ay u baanta in la isku hoogi doono oo fidna weyn dhulka xamar ay ka dhici doonto yaa harkacay ma taqaani hadda mursadaha maanta wax burburinayo وسيركي عدالة حسب معلم باشا مرصدي إيو سنتر دقدير يا هركعي وريا مرصده واقب وريا مرصده والله نريال وريا مرصده هو نمن قدير لي كوي حنو أنك نوجه هبرك ديرتا الله مدحوين حسن شيخو كوا كفرك هذيك وريا فعطو كوا كليتا كصامري مايان مدحوين إلي ساس إلي هدات هذا قبر نجح حنوسن قال يا الدولة دكتور السنة صعده سليمانه عيره سروره دبلاه في ست لياني أصلا صار كره شوق ما كران مدحوينه أباها من سودري هاي مدحوينه وعلى مرصده كوا على مرصده والله عند ريال أنك حصل شيء مدحوينه حصل وحنا جاهلي فعطوه جابر قدر كوا يقول لي تي يقول دقل سنة يقول نجاهلي واحد بختي وضي دم تود موي دم كري أنا كهلي اللي مثلاً موجة حد بعنده كوا إنه بابا واحد بختيي بقى أنا قصرت كان وسوا هذا ها لكن وش هذا أنت يا أولاد دارنا هاس فدي لهاي أنا أولاد أبقى هسكلت جوجانو ها كاسة ننهرب وكاسة لقاتي يسقون نجح شو معي هل كيساس هسكلت جوجا لكن دول كهبرجي لقى بابه وضو وحيوق نوقاتي هذي ده بقى لقى دسين دبلو السعودي تاسوا قسم مرصدها ما أنت لا دير نسميه وريا دايني دوال جلوي حد يا المانت ورا مرصدها ولا دير يا لجو وقول نمك ونمن وسير كينا أو أنا وسير من الهنيا كان مسلمان لأني يعرف عدنا وكان الله يسعره أهم على الفقه وأرنا حلو وسير حسب مع الوارق لا دير كان ما حكون داعي كان مسير إساق الله عايو سي بي بي على رجيب في جرمون نقول وسير كيني على جيب في جلاتك عايجري هبل نقم ميسد هبل نقم ميسد هاي وايا waxay hay'adaha amniga iyo saynisyahannada Mareykanka ku baarayaan liquidkii ama dareerihii lagu buufiyay Congresswoman-ka Ilhan Omar inkastoo madaxweynaha Mareykanka war uu soo saaray oo ku sheegay in waxa lagu weeraray ay ayadu isweerartay sidii hore u sheegi jiray arrimaha dibadda haddii aan aado fudayd وعوي وسير آدم بردو عالي أيا برنامج أدك وها توغا أو ليلنا ينوريا أو كيانا وحو كشايا كارتيدا الصومالي ده وحو كشايا ودامada أفريقيا انتا وبدا مولالك هو وين إن سومالي ليهين لايرك كي وين الصومالية وحو كيري ورياضة من مغلس سيبو كيري مدحوين روت حقو كيمد نيروبي تشوغا محاكينا وهورو حقو كيمد نيروبي تشوغا محاكينا wuxuu sheegay ama cadeeyay in Soomaalidu talent ay yihiin ay kugoodana aad u fiican yahay wuxuu sheegay in generaalada ugu weyn iyo ragga kala wada Kenya ay iyagu yihiin wadamo badan ay joogan oo ganacsiga weyn ku leeyihiin
efan maraykanka iyo ingiriiska meel walba in ayagu ay mataqaanaa madax ka yihiin oo ay wadwadaan marka hadalkaasi aadan bare ducaale aad baa loogu riyaaqay waana shalay xilli wasiirada maaliyadda ee Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya ay muqdisho ku kulmeen oo madaxweyne xasan sheekh oo shir gudoomiyay ayadoo oo saddexduba ay Soomaaliyiin kan Ethiopia ka socday Djibouti ka socday iyo kaga socday Soomaaliyaba saddexnimo Soomaali iyagu ah iyo shir gudoomiyeen oo isugu tageen xamar waaya warban iloo rabay aan soo laabtay taliyaha xilka laga qaaday Janaal Odawa saagi ayaa wuxuu sheegay in madaxweyne xasan sheekh isku khilaafeen laba arrimood oo waaweyn waxa isku khilaafnaa wari dhulka ciidamada dawladdu ay leeyihiin ciidanka militariga ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka sida xerada xoogga mataqaanaa xoogga dalka isbitaalka xoogga dalka xero ruushka ilaahay kuma sabadiiday iyo dhulka la dijiyey ama la sii turkida ay ka tuurayaan gantaalka ay ka tuurayaan oo hore ciidankii joogay adan uga qaado oo jabad geela ka geeyey arrimahaas oo dhan buu ka hor yimid wuxuu leeyahay ma taabanayo wax dhul ah warqadaas saxiix ma yeelayo horna kaas balaanka u diiday marka waxa la yidhi maadaama dhulka la rabay iyo wixii uu diiday shakina uu iska jiray inuu farmaajo la shaqaynayo oo nin harta abgaalna uu yahay Sheekh Shariif ku cida ayaa xilka la iga qaaday wari arrimahaas hadda maaragta baashu xilli kala guuri way cirka isku shararta horna waa looga qaaday waa lagu soo celiyo waa laga maarmi waay inkastoo markii dambe waxyaabaha mucjisada dhacday ay tahay in Janaal Odawa iyo gudoomiye Shuute iyo Sanay Cabdullaba aadayga baa ka carareen oo markii ugu horeysay harta abgaal habqan ah ay habargidin Mangaliiraas wajisteen oo ay matabaan iyo guraceel iyo wisilka dhaceen iyo hobyo ayagoo shaabka cararay weligii harta abgaal xabad ka cararay ma arag hase yeeshee abgaal dhexdiisa beelaha xilka laga ilaaliyey oon xukunka qaban waxaa ka mid ah Macalin Bilaaw oo Wacislaa oo nimanka ugu badan Wacislaa ah oo ugu laandheeraysan xukunka waa laga ilaaliyey waxaa ugu dambeeyey qof Macalin Bilaaw oo xil haya warbax shadortanihi nabadsuguda gobolka Banaadir xilka laga qaaday isagana markii Macalin Bilaaw hadleen waxaa lagu qanciyey oo la yidhi Axmedoob loo shaqeeyaa dadka laga qaaday xilka laakiin dadka xogaalka waxay leeyihiin dagaal baa jiray muddo dheer socdo u dhaxay Cali Gaafkii Macalin Bilaaw dagaalkaas soo ku haya xukunka ilaalintooda waaya qodobkaas xaq ay dhig nimankii la Daawud Abgaal habar xiran xilka ma hayso banaanka la dhiga banaanka dawladnimada banaanka la dhiga kuwan habar girta habaska qaqaylay ayagu waxbay haayaan nabad sugid iyo gaashaandhig iyo booliis iyo meelay buu taagtaagay laakiin harta abgaalka iyo nimanka dhahay Daawudka kuwaas horta waa laga saaray dawladnimada Macalin Bilaaw harta abgaal Daawud ay wax ma hayaanba warkaas ay la fogaaday arrimaha dibadda aan caadi Trump ayaa waxa uu ku hanjabayaa in uu duqeynayo baabi'inayo Iiraan hase yeeshee Iiraan waxay tiri waxay soo daa waa la soo diyaar garoobayaa amiirkii mataqaanaa khaliijka ama imaaraadka carabtu wuxuu isagana tegay ruushku ka degay kadar oo dibidal ra'iisul wasaare Ingiriiska ayaa isagana China tegay oo kii Canada ka daba tegay arrimahan waxay dhacayaan xilli Donald Trump oo hub ka dhigtay cashuurta oo leeyahay haddaad wax arag diidin boqolkiiba boqol cashuur uu ku soo rogaya hub uu ka dagaalamo ka dhigtay laakiin waxa muuqata in reer galbeedkii gaar ahaan midowga Yurub iyo Canada ay iska dhiibayaan hadduu yaacayaan China ay ganacsi la sameynayaan ayadoo dhaqaalaha Mareykanku uu dhulka galay lacagta dollarkana ay qiimo beeshay ayaa waxa la saadaalinayaa in dunidu ay soo wajahayso colaad weyn oo dhibaato weyn ay soo socoto dawladda Turkigana mar dhaweyd ay haasho waxay xaqiijisay in diyaaradaha F-16ka ee qumaati u kaca ay wax gumaara ay Soomaaliya geysay si ay u hortagaan Israa'iiliyiinta iyo Mareykanka iyo huwantooda iyagoo sidoo kale sheegay inay aadanayaan halka ay shaalka qodayaan iyo sidoo kale halka ay space ka tuurayaan gantaalada ka tuurayaan wala supertumanaya maaragta wala sayaa maaragta baashu way adkaata maaragta adduunku waa ololaya marka
waa la isku dahayaa wadamada qaliijka kulligood cabsi ilaa waxay leedahay biq ay yeerto waa gubaynaa carada dhan jaynuhuna waxay leeyihiin ba hadda inkastoo iyaga la yidhaahdo alliansigooda ma ilaaliyaan oo warkooda waa hadal haddana hadda waxay leeyihiin car taraamo taabo iiraan balaayaa dhacayso laakiin jaynuhu iminka tallaabo qaado oo iiraan wuxuu geeyey qalabka difaaca hawada difaaca cirkuu geeyo hawadaasi wax soo geli kara ma leh markab weyn buu diray oo la yidhaahdo abraham trump markabkii markuu diray iiraanna markiiba diyaaraha drones ka dirtay oo saa u dul wareega sawir ka qaadaya badweynta wadahar cali soo dhahaya dabasha geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiiso ha biqlayso